sheeko bal hadda aan ka sheekayno sheekadii geesiyaasha dharkeenna aan diyaarsanno dharka noocaan ah waxaa xiran jiray ilmo idinkoo kale ah inkastoo ay carruur ahaayeen waxay hayeen mas'uuliyad weyn oo ah in ay boqortooyadooda iyo xaafaddooda ka ilaaliyaan khatarta uga imaan karta gudaha iyo dibadda waxay ahaayeen geesiyiin weynaaday waxay haysan jireen wakhtiga ugu wanaagsan uguna cajiibsan markay dharkooda xidhaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan mataanaha baddhowr waxa keliya ee laga rabo waa inay waxa saxda ah sameeyaan dhahaanna waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo waxaan nahay mataanaha baddhowr mar kastana waxaan diyaar u nahay wakhti wanaagsan ساتهين مقعي واحدة ساتهين مقعي وحرسي waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo ilaalinta boqortooyada khatarahoo dhan waa hawl adag haa sax sidoo kale saxanka badan ee cajiibka ah qofka gaajo ayay dareensiisaa fadlan hooyo waxaan cunno ma heli karnaa haa gacaliye shaaxaan karinayaa dukaanka aadoo xoogaa caano iyo rooti ah u soo gad adiyo walaashaa saxan ayaana sugayaa mataan xirsigii geesiga ahaa dukaanka ka ordayaa iga raali noqo fadlan gadaal u laabo waa muhiim in aan kala fogaano 2 mitir aanan gacantana ka salaamin wixii aan qoyskeena ahayn wakhtigan cudurka uu jiro haa adi xitaa badalkiina kor baa iska salaami karnaa hedo qof iraadinaya ayaa laga yaabaa inuu imaado waana isqarinayaa waana sir fadlan sir hayno ahaato see tahay eedo hido fiican xirsi ma aragtay haa xirsi baa ma arkay talow ma waxaad ka wadaa xirsi walaalkay wiilka yar oo indhaha waaweyn oo qabay fanaanada oranjiga ah iyo marada buluuga kuna leh macda weyn hore weligiisna qaba halkab aan xargo u xirnayn jecelna inuu isku qariyo derbiyada gadaashood guriga gudihiisa geedadka hoostood marmarka qaarkoodna dhagaxyada waaweyn gadaashood haa xirsigaas warka mahay ma arkin wakhti dheer waxaan ka wadaa waa sir
taasi waa wanaag. marka xirsi hadda ayuu joogay dukaanka wuxuu arkay 2 cunug oo gacmaha iska salaamaya wuuna ka joojiyey. wuxuu ku yidhi in ay kala fogaadaan 2 mitir weeyaan. wax qalad ah miyuu xirsi galay? ma hubtaa inuusan joogin. xagee ka keentay caanahan geela? haddee neef geel ah baa i siiyey. cajaa'ib. marka xirsi inuu guriga joogo ma laga yaabaa dee? maya, hubaal inuusan xagga jirin. ma albaabka gadaashiisu ku jiraa? albaabkee? albaabka gadaashiisu anigu iskuma qarin. sida cigaalshidaad ayaad u dhaqmaysaa. oo maxaad isku qarinaysaa? iga raali ahow, waan ogaa in aan ku khaldana inaan qudradaada kaa daadiyo. laakiin waan xanaaqay markaan arkay carruurtaasoo kala fogaanaynin. inaan joojiyo baan ku khasbanaa. middaasna waxay ka mid ah ku faafo fayruuska korona. mana rabin dadka xaafaddeena inay ku xanuustaan. alla xirsiyo eeddo baxarku ma jidhid. khalad yar buu ahaa. waan ku garan waayey markaad qabtay dharkaaga geesiga oo aad dukaanka joogtay. waxaan kuu soo raacay in aan kuu keeno rootigaaga. waad soo ilowday. laakiin waad ku saxsanayd xirsi. ma ahayn inay carruurta gacanta iska salaamaan. waxaan rabay in aan kuugu mahadcesho kor u hadlidaadii. xirsi, hido, shaahii waa diyaar. caanaha iyo rootiga keena, deriskana soo dhoweeya. shaah baan karsanaynaa. ma jeclaan lahayd inaad gudaha soo gashid? sobka xirsi, aan marka hore la tashano warqadeena oo xaqiiqaha ku saabsan COVID-19. sidaan u malaynayay, halkan waxaan oga jeedaa maalmaha caadiga ah waa wanaag in aan marwada wanaagsan ee qudradda iibisa la wadaagno cunto iyo sharaab. laakiin hadda ma ahan. waan ogaa. sidaas waa si kale oo fayruuska ku faafo cunto wadaagga iyo soo dhowaynta martida xaafadaheenna. waan fahansanahay. waxaad xaafadoo dhan u tahay ilaaliye cajiib ah. shaqo wacan sidaas ku wad. mahadsanid. ma og tahay hido xitaa inay khatar tahay? waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo. waxaan nahay mataanaha beddowr. sidaas bayna geesiyaasheenna u badbaadiyeen qof walba. waxaan u baahannahay mid kastoo inaga mid ah, mid weyn iyo mid yar, mid da'yar iyo mid waayeel aba, in aannu wada hubsanno oo aan ilaalinno qoysaskeenna iyo qoysaska kale. taasi waxay ka matalaysaa gacmahaaga in aad ku dhaqdo saabuun iyo biyo mar kasto. afkaagana dabool markaad qufacayso iyo markaad hindhisaysana. maaskara xidho markaad bannaanka joogtid. iska ilaali in aad wejigaaga taabato iyo kala fogaada. dhakhtarna la xidhiir haddii aad qandho ama qufac aad dareen. adna ma noqon kartaa ammaan suge. waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo. waxaan nahay mataanaha beddowr.